horta maanta waa jimce waa 16 waa maxaweeye oo maalintii jaamac kadiye waxa weeye aynu qabriga ku ridnay way maalintii khamiis u dhintay maantana waa jimce waa 16 25 kana jimcaha kale ku beegmaysaa hadda bal sida ilaahay isla doortay daawada 2023 kiina maalintii aynu jaamac kadiye lahayn jimcaha jimcihiisa ku xiga gooja cadaan buuga ku qabanayna ama gooja cadaan xafladda ku qaban doona wiig baa u dhaxeeyay jimcaha jimcihiisa baahay maanta waa jimce jimcaha damana muxuu noqonayaa 25 bisha hadda saasa labadii sano ilaahay soo beegay in meesha ay ku jirto xigmadii sida ku ogaada maalinta markaanu hadlaynay xabaasha dusheeda sida Axmed Saakin sheegay oo abwaana oo Sheekh Aadan Walina ku duceeyay xabaal dusheeda gabay laga tiriyo taariikhda Soomaaliyeed xabaashi jaaca kadiyay noqotay gabaygaasuna waa gabigii uu Axmed Saakin kariyaha ka sheegay micnaheeduna wuxuu ahaa in ay maanta ugu dambaynayso waxa weeye dhibaatada dadka ku dhacda waxa laba cisho ka horeeyay ilaahay naxariistii jannaha siiye amiirkeeni Amir Digaale laba waaweyn baa israacay wiiga dhalinyaraduna waa u dhaxaysay waxaan maalinta ballan qaaday jimcaha jimciisa inaan gooja cad ka saari doono buuga jaamac kadina lagu qaban doono ilaahay waa noo rumeeyay surun maaha waanu ku qaban lahayn maalinta jimcaha laakiin xaaladda aanu ku jirnay ayaan suuroobayn oo oog baanu joognay oo ciidamadaanu celinay oo waliba aanu ku dhaaranay iyagoo magaalada oog gudaheeda galay oo ay 6 dhidmi ay waxa weeye ku dhinteen oo lagaga yimi inaan halka loo dhaafin oo dulmi aan loo geysan ciidamadana annaga celinay waanu qaban kareynay markaa inaanu xaflad halkan ku qabanno laakiin nooma banaanayn waxaanu isku raacnay dhaqankii hadaanu nahay ilaahay madaxweynihii ku xigeenkii xukuumadii in sanadkiisa la qabto maanta ay hirgashay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaan halkan uga yeedhayaa taliyaha gooja cadde waad maqasheen ninkii buurtaa saarnaa ee aagan iyadoon la qaban ku dhaartay isna inuu qaban doono General Dhukuul baan u yeedhayaa oo halkan soo istaajinaya waa nin hartiya weey waa nin Axmed hartiya waa nin dashiisha waa taliyaha waxa weeye gooja cadde weey waa ninka meesha waxa weeye mas'uulka ka ah General Xanaana haduu joogo General Xanaanana haduu joogo waa jeclaan lahaa labada sarkaal Xanaana waa nin warsan geliya dhamaan cidii ka halganka qaybta ka qaadatay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya shacabweynaha Puntland shacabweynaha Harti shacabweynaha Soomaaliyeed abwaanada cid kasta waa u mahad celinaa cid allaale cidii Soomaalinimada kaga qayb qaadatay hartinimadu iyadu waa gaar ah madaxweynaha Puntland aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa